السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan waxaa kusoo dhawaateen casharkeena afraad Python Programming Language. casharkeena waxaynu ku eegi doonaa operators iyo sida u shaqeyso with Python. waxaynu ugu horeeyay operatorskeena arki doonaa addition baa ugu horeysa, operators iyo symbol koodii wataa marka addition waa plus caadiya ku dar, subtraction waa garanayso minus, multiplication nagu xigta division, sidoo kale integer remainder waxa way waa integer division. marka iyadu waxay wataa laba division caadi wataa, remainder oo iyaduna boqolley wataa, sample-koodu boqolley yahay, sidoo kale exponent oo iyaduna laba ku dhufasho wataa. aynu aragna marka mid walba si u shaqeyso waxaynu si buuxda ugu fahmi doonaa, koorkeena baynu ku fahmi doonaa. marka waxaan yiri a waxay la mid tahay 7 ay la mid tahay, b baa leenahay b ayaduna waxay la mid tahay baa leenahay 2 ay la mid tahay, enter soo kada. marka mid ugu horeysan ku fahmi doonaa ayaan ku dartaa sum a plus a plus b, enter daawac. marka waxaan daawacayaa sum baan daawacayaa. tusaale ahaan a waxay la mid tahay 7, b na waxay la mid tahay 2, sum labadooda la isku daray, sum labadooda macnaha sum isku darkooda wuxuu la mid yahay a ugu daray b. marka waxay daawacdaa sum iyo daawac. aynu aragna marka sida caadiga 9 baan rajeeynaa, 7 lagu daray 2 waa 9. halkaan bedeli doonaa mar kasta minus baan ka dhigi doonaa, aan garayno waa 5. waxaan samayn doonaa ku dhufashan u bedeli doonaa maadaama waxa weeyaan ku dhufasho ay ku xigto operatorskeena. ku dhufasho aynu ka dhiganaa yes waa la 24 waaye, waa 7 lagu dhigtay 2 24 bay la mid tahay. waxaan samayn doonaa division baan ka dhigan doonaa, markeedana division baynu ku xijin doonaa ilaan ku dhufasho waxay nagu xigtaa division bay nagu xigtaa caadiya. yes waa markii 7 loo qaybiyo 2 waa 3 iyo bar waaye sida caadiga waaye. marka waxaan rabaa inaad fahantaan, si buuxda u fahantaan waxay ku kala duwan yihiin division iyo integer division waxay kala duwan yihiin. halkaas rabaa si fiican loo fahmo, iyo remainder saddexda waxay kala duwan yihiin. saddexdaas ugu muhiimsan waa division, integer division iyo remainder. si fiican iskaga fiiri. yes integer division marka iyadu maxay noo saaraysaa, iyadu waxay noo saaraysaa wax remainder ma soo saaraysaa, macnaha wax jajab ay soo saaraysaa ma jiraan. waxay soo saaraysaa oo kaliya qaybta caadiga ay soo saaraysaa. tusaale ahaan 6 loo qaybshay 2 kala 3 waaye, 3 iyo kala soo saaraysaa. halka macnaha jajabka ka saaraysaa meesha wixii jajabka ahaa bay ka saaraysaa. halka ay tan noo saaraysay divisionka caadiga ay noo saaraysay 3 iyo bar caadiya, 3 iyo bar ay noo saaraysay. waxaan rabaa intaas inaan ku daro boqolleyda. marka midaan boqolleyda oo la yiraahdo remainder ayadu maxay soo dhacay, ayadu kaliya waxay soo saartaa waxa weeyaan haraaga ku saaraysaa. waxay soo saaraysaa haraaga. tusaale ahaan hada 7 loo qaybshay 2 waa 3 iyo bar. haraaga waa maxay? hal baa haraaya, macnaha hal baa haraaya. halka haraaga bay noo saaraysaa aan isla aragna marka waka halka haraaga ahaa bas bay noo saarday waaye. inta waxaan raacinayaa exponent maxay tahay, sidee u shaqeysaa exponent. exponent waa jibaar, indhaha ku arki doontaa. exponent labo oo kale waxay ku jira 7 ay ku jira, b na waxay ku jira 2. marka 7 lagu jibaaray 2 kale waaye, 7 lagu jibaaray 2 oo kale waaye. saas oo kale iyadu u shaqeysaa. marka 49 weeyaan. marka way kala baan rabaa inaan bal ku fiirino inuu ugu shaqeynayso haddaan adeegsano wiigaan ahayn. tusaale ahaan print aan iraahdo a loo qaybiyey waxa weeyaan b. yes maxay noo soo baxay a loo qaybiyey b. a loo qaybiyey b waxa weeyaan waa 3 iyo bar weeyaan. tii kale aan raaciyo oo ahayd haddii ay ku suutan aan raaciyo integer division ayadana maxay noo saari doontaa, waxay noo saaraysaa jajabka caadi, waxay noo saaraysaa 3 soo saaraysaa macnaha jajabkii meesha ka saaraysaa waaye. boqolleyda aan raaciyo reminderka ayadana aan hawada ku fiirino. yes waaye waxay noo saaraysaa marka haraaga un bay soo saaraysaa, ma soo saarayso qaybtii caadiga ayada ma soo saarayso.
waxaynu ku fiirin doonaa marka exponent oo midaan exponent waa jibaar 49 yes marka waxay la mid tahay a oo lagu jibaaray b oo kala waaye a oo lagu jibaaray b oo kala waaye hoos kala weeyaan